bararo padrolio saridio dahadaka buuxi bararo padrolio saridio dahadaka buuxi haddad badan weydaan barbaraya filanina haddad badan weydaan barbaraya filanina haryooyinaad ku beeritaan dhaqaalahana badisaan haryooyinaad ku beeritaan dhaqaalahana badisaan bidcilkoo caleeliyo kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ka soo jeedinayno magaalada Hobyo. barnaamijkan gaarka ah qaybtiisa hore waxa aynu kusoo bandhigaynaa kalluumaysatada xeebta magaalada Hobyo inagoo ay tusi doona dhalinyaro u tafaxaytay inay muruqooda iyo maskaxdooda si hufan ugula soo baxaan kheyraadka ku jira badooda. taraqada ka waran fikrada mid kale hadda aan wadno waa mid ugu qaalisan oo $1 barka la siiyo kiiladii taraqadana leeyahay magaciisa. qaybta labaad ee barnaamijkana waxaan kusoo bandhigaynaa maamulka Hobyo oo bilaabay dhismayaal lagu sameynayo wadooyinka magaalada. waxaan eegaynaa sida dadka deegaanku ay u arkaan ololaha ka bilowday magaalada waxaan si ku hormaraynaa qaabka looga kalluumaysto xeebta magaalada Hobyo. halkan waxaa lagu magacaabaa daamcad waxa ay ka tirsan tahay magaalada Hobyo waana marso ay ka shaqo tagaan kalluumaysatada ama badleyda deegaanka Hobyo. kalluumaysatadani waxa ay ku shaqo tagaan doonyaha yaryar ee matoorka gadaal laga saaro kadibna waxaa kalluunka ka iibsada doonyo laga leeyahay dalka Yemen. sida aad arkaysaan doontaas ayaa ka mid ah doonyaha iibsada kalluunka deegaanka. innaga oo wadana kaamiradeena ayaanu raacnay mid ka mid ah saxiimadaha ka kalluumaysta halkaasi inagoo ulajeedkeenu ahaa in aynu dul tagno doontaas weyn ee idin muuqata taasoo ka mid ah doonyaha laga leeyahay dalka Yemen ee wax ka iibsada kalluumaysatada Hobyo. dhinaca kale waxa aynu wada soconaa gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Fahad iyo wafdi hogaaminayo kaas oo u kurgelaya xaaladda kalluumaysatada deegaanka isla markaasna dhiirigelinaya kalluumaysatada. qadar ka yar 10 daqiiqo oo aynu ku soconay saxiimada yar ayaan la sii sheekaystay kalluumaysatada aan la socday. sharad meeqa bad ka shaqeynaysaa waa ka shaqeynay ilaa 6 sano aye ma ku qanacsantahay shaqada badda waa u waxsanahay kastoo daymaan ayay leeyahay kalluumaysatada aye marka waxa weeye hadeertaana waa u waxsanahay dadaan oo yimid kalluunka qaadanaya annaga oo walba ka shaqaysanay madax kaliya baasan intaas kadib waxaan kornay doontii weyneed ee aynu u soconay waxaan tusaynaa qaabka ay doontani kalluunka uga wareegto amaba ay uga iibsato kalluumaysatada deegaanka Hobyo. sida arkaysaanba doontan waxaa la socda shaqaale isugu jira Soomaali iyo Yemeniyiin kuwaas oo shaqo ballaaran ka haya kalluunka doonta saaran. الفرق بيفتح الفرج hadda waxaa soo istaagtay saxiimad kalluun sida waxayna kalluunka ku soo wareejinaysaa doonta weyn kadibna waa la miisaamayaa kalluunka
هذا أمور خلاص ميزان بطلع دحين يلا ميزان دحين أيوة دحين أمور بنطلع في الميزان يلا فيديو يا أخي شغل فيديو أيوة هذا أمور بنشوف دحين كم كيلو جابوا دحين sida arkaysaanba waxaa la surayaa miisaanka أمور بنشوف دحين كم كيلو كم كيلو هذا 26 كيلو 24 كم 24 كيلو wuxuu yiri waa 24 kiilo كيلو عمور جو فوق برا 24 واحد رقم واحد هذا رقم واحد mar kale ayaa lagu noqday doonta oo weli kalluun kale ayaa saaran oo sidaan oo kale loo miisaami doono قحش الراقة هذا sidaad maqlaysaanba gaxash waa magaca kalluunkan 24 عمور 24 waxaa doonta dusheeda saaran gudoomiyaha magaalada Hobyo Cabdullaahi Axmed Cali Cabdullaahi Fahad waxaan halkaas kula yeeshay waraysi waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in ilaahay mahadiis aan soo booqdo doomo ka kalluumaysanaya xeebta Hobyo anigoo ah maayarka magaalada ama duqa magaalada doomahaas oo ay ka yimaadeen meelo ka baxsan dalka Soomaaliya sida Yemen oo kale oo filaynaya doomo Yemen doontan doon ka soo shaqo tagtay dalka Yemen walantii dalkan inay kalluun ka iibsato ganacsatada kalluumaysatada ee Soomaaliyeed waxay qayb ka tahay waxyaabaha dhiirigelinaya in dadku ay shaqaystaan hadii badda la galo waxay faa'iido u leedahay bulshada guud ahaan waayo waxaa ka imaanaya dakhli ummadda u soo ururaya dakhligaasna wuxuu keenayaa in magaaladii dhaqaale ay hesho noloshii wax badan iska bedelaan sidaa daraadeed marka waxaan aad ugu faraxsanahay dadka shaqaysanaya ganacsatada Soomaaliyeed ee garabka lagu siisay inay maanta doomaha ayaga ay kalluunka gataan ay nagu marti qaadaan waxaan leeyahay marka dadka warba joogta ee Soomaaliyeed ee kula dadka dibadiisa gaar ahaan dadka reer Galmudug iyo kuwa ku abtirsada Hobyo inay u diyaar garoobaan kana mid noqdaan dadka ka faa'iideysanaya kheyraadka Ilaahay si ummadooda ay yimaadaan dalkooda ula shaqo yimaadeen waa arkaysan kalluunka meesha yaala quruxdiisa iyo fiicnaantiisa waxaanu kalluuna marka waa nimco Ilaahay nasiib haddaan u shaqo nimaadno aan doomaha aan ku raaxaysanay Yurub iyo meelaha Mareykanka aan ku hayno la keeno dalka wax badan ayaa hore u socon lahaa waxaana muhiim ah in la isku dayo in loo abuuro market ama suuq geyn kalluunkan waayo hadda dadkan kalluunka qaadanaya qiimaha ay ku qaadanayaan marka ay eegtay iyo qiimaha dunida uu ka joogo farqi weyn u dhaxeeya waxaan dhihi lahaa marka ganacsatada iyo dadka waxgaradka ah ee diyaar ku ah inay dalka yimaadeen ku soo laabtaan kana shaqaystaan mahadsanid waa tahay marka doonyaha kalluunka iibsada ayaga maxaa u soo jeedinaysaa halkan yimaada ee kalluumaysatada Soomaaliyeed ee deegaanka Galmudug ee gudoomiyaha ka tahay ka iibsada kalluunka maxaa ugu soo jeedinaysaa waxaan u soo jeedinayaa marka ugu horeysa waxay ka faa'iideysanayaan waa kheyraadkii la wada lahaa oo badda ah waxaan leeyahay iyaga laftooda waxaa laga rabaa inay kheyraadkooda u ilaashadaan sida ay u ilaashan lahaayeen ilaashashadaas macnaheedu maaha in kheyraadka lagu xadgudbo ma kalluunku waa dhowr nooc kuwa koraya inaan la baabi'in ukumaha kalluunka inaan la dhibaateynin badda inaan la abuurin waxyaabo maartay dabar go' keeni karo oo kalluunka uu nooga guuri karo taa waa talada guud aan siinaya ganacsatada kalluumaysatada midda kale waxaan leeyahay dalku wuxuu idinku leeyahay xaq iyo xuquuq waxaa ka ganacsanaysaa waa wixii waddanku iyo dadku ay wada lahaayeen waxaa leedinka rabaa inaad gacan ka geysataan cashuuraysaan yani isku dadaan in dibdhiska dalkiina ka qaataan kun shilin aad ugu dalaan degmada ka kalluumaysanaysaan faa'iiday u leedahay horumarkeeda ilmaha lagu baran lahaa waxbaa loogu qaban lahaa deegaankaa loogu horumarin lahaa waxaan usoo jeedinaa inay waxna ka faa'iidaystaan waxna dadkooda uga faa'iideeyaan una diyaargaroobaan in dalkan uu dibdhis ku socdo qaybtooda ay ka yeeshaan qaar ka mid ah kalluumaysatada wakiilka ka ah doontan ayaan kula kulmay doonta dusheeda annagu nimankii mas-uuliyiinta ee doonyaha wakiilka u hayaanahay malaygaana nimankan waxaa noo qaadaa badlayda oo saxiimadaha wata waana iska nolol maalmeed fiican oo ka fiican wixii macnaha lagu jiri jiray wax ka fiican aan maanta hayna gacanta ku haynaa waa tahay marka kalluunka hadda waa yaryaha miya mise soo xasaarkiisa wax soo saarkiisa waa fiican yahay aad u fiican yahay wax soo saarkiisa saxiimadii barbar waa maqan yihiin qaarna waa yimaadeen ilaa 400 kiilo hadda noo saaran wax ku dhow
haddana waa sugaynaa wax ka badan inuu yimaado haddii ilaahayna maalintii imise kiilo kalluuna doonta xaraysaa markii hadda baddu ay fiican tahay ilaa hal tan aduu 800 kiilo 900 tan iyo xoogaa marba sidaa loo helaa wax waa tahay marka dadka deegaanka ka soo jeeda maxaad ugu soo jeedinaysaa adduunka dacaladiisa joogta daawanaya waxaan u soo jeedinaynaa inay gacan naga siiyaan habka loo kalluumaysto ama waxyaabaha wax lagu qabsado sida fiilooyinka shamaagaha matoorada inay wax naga taraan adduunyada ka codsanaynaa iyo dawladda federaalka iyo dawladda galmudug saxiimadda hadda soo istaagtay horay ayay kalluun u keentay balse mar labaad ayay badda ku laabatay mar labaadkiina waxa ay soo heshay kalluunkaas yar ee aad u jeedaan midkaan hadda aan wadno waa midka ugu qaalisan oo $1 barka la siiyo kiiladii taraaqadana la yidhaha magaciisa King Fishna waa la yidhahdaa wiilka dhalinyarada ah ee saxiimadda naaquudaha ka ah ayaan rabaa in aan waraysi la yeesho axmed maanta meeqa kiilaa soo saartay kalluuna afar ya 40 kiilo taraaqad ah ma badan tahay 40 kiilo ma soo yar tahay waa badan tahay imise qof uga shaqaysaa doonta imise qof uga shaqaysaa saddex dinan wax caqabado ma la kulantaan wax caqabado ama dhib ma la kulantaan ya حوالو كلتان واحد ولا ما كلتان ما سنت شيالك كاغا ميا قدامي هي وارتا كلونك سو دبا دحيا دوين بدن ما قنا ليدي hadana kuwa yimid oo kalluunka laga gudiyay kiilooyinka ay keenaan waa arkaysay marka maxaa markaad eegtid qeyraadka ka soo baxaya badda sidoo lagu shaqeysanayo dhalinyarada si u shaqeysanayaan xeebtan galmudug ee gudoomiyaha ka tahay maxaa u soo jeedinaysaa dadka aaminsan in deegaanka wax soo saar lahayn gaar ahaan badda ama aan shaqo abuur badan ka sameeyay wallahi horta waxaan aad u faraxsanahay wax aad ii dhiirigeliyay maanta waxaan arkayo walo aan rajeynayo inay ka sii bataan aan jeclaan lahaa haddana waa tallaabo aad loogu farxo in dadku ay badda u shaqo tagaan shaqeystaan wax qabsadaan soo saartaan nolol maalmeedkooda taas waxay faa'iido u leedahay dadka waxay faa'iido u leedahay deegaanka waxay faa'iido u leedahay dhammaan dadku abtirsay galmudug ee meesha marka waxay ugu dhiirigelinaysaa inaan u raadiyo horumarin deegaanka haddii ilaahay yiraahdo taasoo aan rajeynayo inaan ka raadin karno ama aan keeni karno gacan aan ka helno dadku abtirsay galmudug iyo maamulka dawladda dhexe oo aan leenahay qaasatan wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda inay u soo jeesto dadkaan raba inay shaqeystaan dhinaca kale hay-adaha caalamka sida FAO oo kale sida maaragtay dadka kaalmada bixiyo dhan waxaan leenahay dadka deegaanka waxay diyaar u inay shaqeystaan hal dhiirigeliyo inay shaqeystaan intaas kadib waxaan u soo degnay dhanka biriga waxaana la kulmay qaar ka mid ah kalluumaysatada deegaanka kuwaas oo ka waramaya qaabka ay nolol maalmeedkooda ula soo baxaan iyo haddii ay jiraan caqabado ama dhibaatooyin ku xeeran kalluumaysigooda magacaygu waa Khalid Xamed qalib ka waran kalluumaysiga sida u socota shaqada kalluunka hadda way fiican tahay inkastoo xilligii hore oo hadda daydka ayuusan ka wanaagsanaa oo hadda uu gaabsiya shaqadiisu uu wanaagsan yahay hadda waa weli waa laga shaqaynayaa oo dooyinu way yar yihiin kalluunka soo saarka uu yar yahay kalluunka waxaa laga iibiyaa qola Yaman ka timid ayaa laga iibsan karaa kiilahan naga iibsadaan mid been nooc ay noo gadaan mid bermo weeye mid sooba kasa ku xigta mid waa nooc weeye mid ku $1 iyo barbe naga siiya mid ku qiimaha yarna $1 naga siiya maraakiibta kale ajnabiga ee badda ku sugan wax saameyn ma ku yeeshaan ay kala tuudaha kalluumaysiga ku yeeshaan siistooyinka kala tagaan shabaga kala tagaan caqabado badan oo wax soo saarkooda iskala baxayaan
waxyaalo badan caqabado badan ay ku yeeshaan maxaa marka ka codsanaysaa dowladda galmudug iyo bulshada sida kale maxaa ka codsanaysaa dadkii kalluumaysatada ee galmudug annagu waxaan ka codsanaynaa inay haddii alla kulmiyay dadkaas masaakiinta oo hadda waddamada ka shaqaysta waxay ku caawin karaan ku caawiyaan xagga qalabka oo kale aad ku shaqaysataan xagga qalabka kale shamagaa iyo hadda jilbaha oo kale iyo filooyinka oo kale iyo waxyaalo noocaas oo ay u baahan yihiin dadka oo kalluumaysa cabdi kalluumaysatada daamacada ka mid tahay soo ma ka warran sida loo kalluumaysto daamacada iyo kalluumaysatada xaaladeeda guud haddii aad soo heshaan xagga geysaan doomo xar yar naga qaado meelahaas Yemen u dhiga Yemen laga leeyahay meeqayn ka siiyaan marka kiilida $1 kiilida $1 ma isku qiimo meel ka siiyaan ma qiimo kala duwan kiilida hadii $1 iyo kiilida $1 labadaas naga siiyaan ma jiraan caqabado kalluumaysatada haysta haysta ma ana qashwad la'aan jirtay ya qashwad la'aan qashwad maxaa la jeedaa qashwad waxa la jeedaa macnaha wax lagu kalluumaysto qalabka kalluunka kale shabagaha kale doonyaha macnaha lagu wato saxmadaha macnaha lagu wato motorta lagu xiro ayaha noocaas waka saadiyo ujeedada qasdigeedu wuxuu yahay saadiyo ujeedada qasdigeedu wuxuu yahay saadiyo ujeedada qasdigeedu wuxuu yahay وقني بدين يا غيرات باك بوحي قولوا حاكة ربنا قولوا حاكة ربنا وقني بدين يا غيرات باك بوحي قولوا حاكة ربنا روحا كثيرة بدن وغضب نقالها قيب وين كقاتل وغضب نقالها قيب وين كقاتل وقرب نقالها قيد وين كقاتل وقرب نقالها قيد وين كقاتل daawadayaal intaas waxaan ugu gudbaynaa qaybtii hore ee barnaamijka gaarka ah oo aynu kugu soo bandhignay qaabka loo kalluumaysto xeebta Hobyo markaana waxaan u gudbaynaa qaybta labaad ee barnaamijka oo aynu ku soo qaadanayno maamulka cusub ee magaalada Hobyo oo bilaabay dhismayaal lagu sameynayo wadooyinka dhex mara magaalada Hobyo iyo dhismayaal kale gudoomiyaha degmada Hobyo Axmed Cabdullaahi Cali ayaa xariga ka jaray wadada isku xirta madaxtooyada iyo magaalada Hobyo taas oo dayactir lagu sameeyay gudoomiyaha ayaa dadka deegaanka ku baraarujiyay in ay ka wada shaqeeyaan horumarinta deegaanka isagoo xusay in degmada Hobyo uu dhawaan ka hana qaadi doono horumar ballaaran maanta halkan waxaan isugu nimid sida aan u furan lahayn mashruuca ugu horeeyay ee magaalada ka qabashadeeda iyo bilicdeeda waxaan ku bilownay wadada isku xirta magaalada iyo madaxtooyada wadadaas aan mid bacaad gooyay dib badan lagu qabay waxaan maanta ilaahay noo suurta geliyay inaan ka bilowno hawsh
bacaad celinta iyo dibdhiska waddada waxaana meeshaan ku kulaysan dhammaan reer Hobyo waxaan leenahay waddada waa noo furan tahay waana mahadsantihiin waxaan leeyahay reer Hobyo waa mahadsanyihiin marka labaad waxaan leeyahay waxaan u baahanahay madax muuqda iyo mid saawir midna laga maqoosto shacab meel degan nahay inaan isku tashano oo aan noqono dadkii wax qabsan lahaa waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Hobyo diil iyo hoo garab iyo gaashaan hadii ilaahay ku reeyay in xoog iyo xoolo waxay ay leeyihiin ay u horaan dalkooda barnaamijka waa barnaamijkeeda u hiil Hobyo waxaan ugu baaqayaa dadka qurbo joogta ah ganacsatada in nin walba u heli karo deegaankaas uu ku caawiyo bacaadkaas geedahaas mashaakilkaas haysta waxaa loogu gudbi karaa anagoo gacmaha isqabsan gudo iyo dibad baaqaan u jeedina alle soo dhawaada gacan siiya dadkiina deegaankiina iyo dalkiina magacayga waxaa la yidhaha cabdisaaq maxamed ducaale maareeyaha dekadda Hobyo ujeeddada hadda aan ka hadlayna waxa weeye waxaa guddoomiyaha cusub ee degmada Hobyo Cabdullaahi uu markii koowaad noo hirgeliyey oo degmada Hobyo loo doortay in uu noo keeno cagaf aan ku fududeyno hawsha jidka arrintaas aan u aragnay arrin muhiim u ah degmada Hobyo waxqabadkeedii in muddaaba laga lahaa degmada in hadda ilaahay uu noo fududeeyey waxaan jaaliyadda dibadda dadka kale Soomaaliyeed maamulada galmudug dawladda federaalka meel walba ka codsanaynaa maadaama aan waxqabad u soo jeesanay in waxna kala qabto sidii jidka iyo magaalada horumarkeeda hadday dekad tahay hadday jidadka tahay hadday tahay airportka dhammaan in waxna kala qabto waxqabadkii u horeeyay ayaan maanta waxaan suurto gelinay oo ilaahay maadii maayirku uu noo hirgeliyay in Hobyo laga bilaabo haddaba waxaan codsanaynaa in alla intii doonaysay in waxqabad wax lagu qabto waxqabad maanta la bilaabay waa in laga qayb qaato بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد علي قوري وهرمرنتي مشاريعدا maanta shaqadii ugu horeysay noo bilaabatay shaqada maanta bilaabanaysa waa arkayseen duqi magaalada noo keenay caafti maanta shaqadii ugu horeysay wax ka qabanayna wadadii caadkii baan qaadaynaa hawshii baan wadnaa waxaan u sheegaynaa dadku meel kasta ay joogaan wixii Hobyo ku aftirsada shaqadan aan wadnaa inay taakula naga soo siiyaan hadday dibadda jiraan iyo hadday Mareykan joogaan iyo hadday Sweden joogaan iyo hadday Canada joogaan meel walba ay joogaan dadka Soomaalida ah ama Hobyaadka in ay taakula xawla ka soo qaataan shaqadii ugu horeysay qabanay Hobyo maanta waxa weeye waxay u baahan tahay hiil iyo hooy u baahan tahay qofkii maanta Hobyo wax u tarayo maanta uu jeedaa shaqadan qabanayna waa sirti gudoomiyaha waa jidkii wadadii wasiirada waa la soo wadaa airportkii shaqadiisa waa la wadaa hawlo waaweyn baa meeshan ka socda ka soo qayb gala dadka waxaan ka codsanaynaa inay ka soo qayb galaan maadaama dadkii aan maanta taaganahay hawsheeni way hawsha hadda lahay hawshii aan u shaqada lahaa mashaariicdii iyo horumarintaan ahay hawsha ugu horeysay maanta la wadaa hadda waxaan leeyahay dadka meel kasta jooga assalaamu calaykum waraxmatullaahi hebad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo hebad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane agarlii wuxuu qabo wana lama huraane agarlii wuxuu qabo bismillaahi raxmaani raxiim waxaan rabnaa galabtay haddaan nahay haweenkii degmada Hobyo halkan waxaan u nimid xarig jarka cagafyada uu noo keenay maayirkeena Cabdullaahi waan ku hambalyeynaa waan ku faraxsanahay waxaan la garab taaganahay hiliyo waxaan jecelnahay inaan iska wax u qabso ku shaqeysano inaan shirinkeena iyo xooggeena iyo dahabkeena maayirku uu mahadsan yahay sida sharafta ku soo xilqaamay cagafta uu xooga noo saaray annagana waxaan rabnaa haddii alla madaan nahay shacabka reer Hobyo inaan dahabkeena lacagteena cududeena codkeena intaba aan deegaanka wax ugu qabanno hiliyo hoona waa la garab taagna ma isku raacna waxaan aad ugu mahadcelinahay maayarkeena magaalada degmada Hobyo waxaan leeyahay hambalyo xilkaaga noqo mid ay waajibkiisa guto xilkiisa fiican guto dadkiisa ay jecel yihiin waxaan maayarkorta aad ugu codsanaynaa magaalada ma ka jirto wax barasho hadda dhalinyartan waxaan aad u xiiseynaa waxbarashada noogu dadaal maayar waxbarashada leenahay hambalyo mar labaad ninba gabiyo wuxuu yiri intaad saxaabadu dhigan lahayd nacab ku dhuudaya si aad dhooma inaad buuxsatay u dharagtay ku moodo dhafoor xumiyo cadawgaagu iyo dhoofna ka garane waxa loogu soo dhaashadaa dhuux sagaarad haddaad se hadalku geestu u dhacay sii dhadhamisaana dhudhunkeeda taa lama lahayn dheef ka raadsada macnuhu waa dhigaa lama bari cabka dhowrsada
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa daawadayaal barnaamijka gaarka ah ee aan ka soo jeedinayay magaalada Hobyo anigoo ah Cabdi Xasan Awoowe waxaan idin leeyahay nabadgelyo hormadan ka duulaha tabiyo hormadan ka duulaha tabiyo hormadan ka duulaha tabiyo